السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السؤال قشة وناكسن مركان وحنا روسي قال دونا هدي لا يرادو ستيب كينا لبعض I mean section كينا لبعض research methodology section كان مركان هدي لا يرادو وحنقو قادن دونا وحلو يقال research process so مركان لدى start waxaan ka sameyn doonaa marka research process waa dhammaan maaragtay course-keena waxaan ku qaadan doonaa waa kaliya research process-kaas marka research-ka idilba wax walba uu leeyahay mid walba step ka soo gelin doona ama phase laakiin marka koobaad waxaan sameynaynaa overview-giisa guud ayaan muuqaalkan ku sameynaynaa hadii la yiraahdo marka meesha waxaan leenahay research process-ku wuxuu leeyahay phase-yo iyo steps marna waxaa loo fiiri karaa steps ahaan marna phases ahaan markii phaseska loo fiiriyo waxa loo yaqaano research process wuxuu kala noqonayaa phase-ka koobaad oo la yiraahdo deciding iyo phase-ka labaad oo la yiraahdo planning inaad inaad sameyso qorsheyn iyo phase-ka saddexaad oo in aad markaas sameyso conducting oo research-kii aad qabato saddexdaas phase ayaa maaragtay ayuu noqon karaa markii loo fiiriyo as phases ahaan marka koobaad waxaa go'aansanaysaa research-ka aad qabanayso macnaheedu uu yahay inaad problemkii doorato ama si kala daan u dhahna inaad topic-gaagii doorato oo aad go'aansato hoostiisa marka wax badan ay imaanayo oo in la sameeyo ay tahay under that process under that phase laakiin guud ahaan waxay isugu imaanaysaa inaad problemkii doorato ama inaad doorato waxa loo yaqaano wixii aad baaraysa ama topic-gii marka labaad si aad u qabatid marka ama problemkaas aad u xaliso ama topic aad u baaritidna waxaad u baahan tahay inaad qorsheyso saad u baari lahayd waa phase-ka labaad phase-ka saddexaadna waa inaad qabataba soo marka si kala daan u dhahna saddexdan phase waxay ku base garaysan tahay sida caadiga ardayga ama maaragtay qofka qalin jebinayo whatever level uu yahay saddex mar ayuu checkpoint maraa maaragtay aan isticmaalo luqadeena waxaan ula jeedaa marka saddex mar ayaa maaragtay hubitaan ayuu marayaa marka koobaad waxaa laga hubinayaa title-kiisa inuu ku haboon yahay inuu qaban karo inuu whatever in loo ansixiyo kulli topic la ansixinayo in badan oo aragtaa waa phase-ka koobaad oo la yiraahdo go'aansashada go'aankiisa waa la ansixinayaa marka labaad qorshihiisa ayaa la ansixinaa oo waxa loo yaqaan proposal-kii inuu soo qoro ayaa laga rabaa proposal-ka marka waa saddex chapter hore ee maaragtay research-ka shan chapter maadaama uu ka kooban yahay sida caadiga saddexda hore waxaa la isku yiraahdaa proposal marka waa soo jeedin استراتيجية الريسيرش كقبل هذا يسوي جيدين يسمى معناه هو بلانينج أوكي سو مركا أنا واحد دفاع عني يسمى مركا سيدا الريسيرش كقبل هذا والله وجه تردد بقى هي سيد دفاع عني سوى سوبر بوسكرين يدنا ودفاع عني سان مركز الدحاد مركز جبون تجمع سنة واحد تهاي مركز أد كونكت جريس ريسيرش كي دمارة تهاي الدفاع عني سوري بود كاجي ودم بيه labadii chapter oo dambe iyo macal proposal-kii oo la isu geeyay book-kii oo maxay report oo markaasiti dhamaystirno soo marka meesha waxaa leenahay saddex phase waxay ku base garaysan tahay caadiyan saddexda mar ee markaasi toobinta amaraysid okay waa marka uu go'aankaaga la hubinayo oo topic-gii marka proposal-kii aad difaacanayso iyo marka saddexaad oo book-kii oo aad difaacanayso okay markii phases-ka loo fiiriyo markii loo fiiriyo steps-ka waxa weeyaan ilaa iyo 8 step phases-ka saddex ay ahaayeen 8 step ayaa markaasiti kala hoos imaanayso saddexda phase phase-ka koobaad caadiyan waxaa hoos imaanaya wax loo yaqaano step-ka koobaad oo la yiraahdo formulating research problem in aad maaragtay samaysato research problem-kii ama aad doorato problem-kii oo aad markaa xalin lahayd step-ka labaad wuxuu hoos imaanaya phase-ka labaad waxaana weeyaan in aad research design-kii doorato phase-ka saddexaad wuxuu noqonayaa in aad tool-ka wax kusoo aruurin lahayd doorato phase-ka afraad wuxuu noqonayaa in aad sample-kii aad soo wareysanayd maadaama population-ku ay badan yihiin inaad sample-ka doorato inkastoo sometimes population-ka la wada qaato okay step-ka shanaad wuxuu noqonayaa inaad proposal-kii aad qorto proposal-ku marka isna kuwii hore dhan soo wada galayo laakiin step ahaan step-ka shanaad ayuu noqonayaa shaqada shanaad la qabanayo waa inkastoo kuwan ay hoos imaanayaan isaga phase-ka saddexaad oo connecting okay markii aad difaacato proposal-kaaga waxaad bilaabaysaa marka hore waxaa kugu soo diyaarsanaa sample-kii waxaa kugu soo diyaarsanaa tool-kii aad dadku ku wareysan lahayd habkii oo dhan wixii idin kugu diyaarsanaa oo qorshe ahaan marka waxaad samaynaysaa marka xogta inaad soo aruuriso adoo laakiin isticmaalaya maxay toolashii aad markaa soo diyaarsatay oo maxay step-kii saddexaad ahaa tool-kii aad soo diyaarsatay oo xogta kusoo aruureed questionnaire miya interview miya halkaaba kusoo diyaarisa
weliba isticmaalaya ama soo wareysanayo sambalkii aad ayagana halkan kusoo dooratay stepkii afraad. Okay, sidoo kale waxaad samaynaysaa markaad soo aruuriso inaad process garayso datadii soona display garayso, oo loola jeedo inaad xogta aad soo aruurisay haddii questionnaire oo ay kaba soo qabo waxaa loo soo aruurin karaa hab collective ah iyo hab online ah. midda aad kusoo aruurisaba markii aad maaragtay sambalkii aad rabtay kuusoo jawaabaan waxaa lagaa rabaa inaad marka appkaagii tagto SBS ahaado toolka lahaado kii aad ku analyze garaynaysa, deetana aad ku code garaysto datadii ku shubtid, kadibna aad kasoo display garaysido maaragtay kasoo bandhigtid. kaana waa stepka shanaad. marka ugu dambeystii waxaad samaynaysaa inaad report garayso datadii aad soo aruurisay iyo maaragtay deetana aad process garaysay iyadoo adigoo markaa qaybta horena kusoo xiraayo. Okay, so marka research process haddii aad maqashid waxa weeyaan waa saddexdaas phase waxaana kala hoos imaanayo 8daas step. Okay, so marka picture-kan yariiska ah wuxuu noo muujinayaa phase ahaan marka research process-ka loo fiiriyo waa phase A oo phase koowaad ah deciding ah oo inaad doorato research questions-kii to answers, macnaheedu is like research wixii laga jawaabi lahaa inaad doorato oo loola jeedo waxa la yiraahdo maaragtay inaad doorato problem-kaaga ama topic-kaaga what maxaad baaraysaa mana. sidoo kale planning how aad u qabanaysaa inaad maxay samayso. Okay, sidoo kale collecting oo ah xogtii inaad maxay soo aruuriso information required-ka inaad soo aruuriso. halkan yarka waxaa ka arkaysaa marka stageska. Okay, phase-ka koowaad hal step ah hoos yimiday warar waa soo sheegnay isagoo picture ahaan ugu yeer. phase-ka labaad waxaa hoos imaanayo 4 step oo ah ilaa 5 maadaama koo hore uu jiray, iyo phase-ka saddexaad waxaa hoos imaan doona isagana 3 hab. so marka saddexda phase iyo 8 step inaad mid walba dusha ka garan og tahay oo fahansan tahay waa muhiim. iyaga marka mid insha Allah taala usii gali doonaa haddii ilaa yiraahdo, laakiin jaanigeena guud inuu intaan ahaan doono oo marka aan intaan sii kala dhigayno sida uu ogaado insha Allah taala waana inoo next section. Salaamu Allahi alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.